ablution weyso weysada luqadda ingiliishiga waxaa loo yaqaanaa ablution weyso waa isweydiinaysaa weyso maxaa u dhaha luqadda ingiliishiga weysada waxaa loo yaqaanaa ablution waa weysada waageysaa fadlan muuqaalkan laagta kilowin maxaa yeelay dhiirigelin ay noo tahay abortion dhicisiyo abortion waxaa loo yaqaanaa dhicis ilmo soo hallaabeen oo bilahooda aan gaarin abortion ayaa loo yaqaanaa tusaale ahaan xaaskaaga uur leh 4 bilood hadday kasoo hallaabaan ama 3 bilood caruurtii ay kasoo dhacaan soo dhiciddaas waxaa loo yaqaanaa abortion waxaa waaye ilmaha markay soo dhicisoowaan ama ay soo dhacaan abortion okay fadlan muuqaalka laagta kilowin abortion ayaa loo yaqaanaa dhicis abortion pill kiniiniga ilmaha lagu soo rido waxaa jiro dhakhaatiirta waxay siiyaan gabdhaha markay rabaan inay canuga calooshooda ku jiraan ay soo ridaan abortion pill waxa loo yaqaano waa kiniini la liqo oo canugana soo rido durbadiiba abortion pill waa kiniiniga canuga soo ridayo tusaalahaan gabadhan canugeeda haddaysan rabin inay rabto inay soo rido kalin laguma samaynayo canuga macnaha 2 bil ama 3 bil ama 4 bilow jiraa caloosha kalin laguma samaynayo waxay samaynaysaa kiniini ay cabaysaa oo loo yaqaano abortion pill kadibna canuga waa soo dhalaalaa sidiisaba sida barafka oo kale okay asoo dhiig ah ayaa ka soo baxaa marka kiniiniga canuga lagu soo rido waxaa loo yaqaanaa abortion pill waana qaali abortive maxaa loo yaqaanaa waa fashilmay abortive attack weerar fashilmay okay isku day fashilmay waxaa waaye abortive attempt waa isku day fashilmay isku day dhicisooway idaacadaha saasay dhahaan marka abortive waxaa laga wadaa dhicisooway ama fashilmay waxaa la rabay qofkaas in la dilo laakiin qofkii dadil lahaa la qabtayba waxaa loo yaqaanaa marka abortive attack abortive attempt isku day dhicisooway isku day fashilmay abscess ka soo bax fin waxaa jiro sida caadiga ah dadka qaar oo maqaarkooda uu jilcan yahay meelahan oo kale xilliga kuleelka oo kale inta oo kale isha oo kale meelahan oo kale waxaa ugu soo baxo nabarkaas oo ka soo baxa ah oo aan jug lagu geysanin waxaa loo yaqaanaa abscess waa ka soo bax marka lagu leeyahay waa nabar ka soo bax ah oo aanan lagu garaafeenin abscess waxaa waaye ka soo bax fin marka weji kaaga soo baxo ama meelahan oo kale Soomaalida gaar ahaan meelaha anaga degno waxaa loo yaqaanaa geed kuleel ayuu u taqaanaa marka abscess waxaa loo yaqaanaa geed kuleel ama fimanka oo dadka soo baxa xilliga kuleelka oo kale kiniin lama isticmaalo diinsi ayaa loo isticmaalaa absenteeism maqnaansho goosgoos tusaale ahaan ninkan wuxuu rabaa luqadda ingiliishiga inuu barto sabtiyo imaanaa axad ma imaanayo isniin ma imaanayo talaado ma imaanayo haddana arbaco imaanaa ama kitaabo rabaa inuu barto wuxuu imaanaa isbuuciba 2 mar oo ka imaanaa absenteeismkiisa maqan goosgooskiisa shaqada looma ogola absenteeism shaqada goosgoos iyo maqnaansho looma ogola 5 beri haddaad shaqaynaysid waa inaa 5 beri si oo regularly ah u imaataa si joogto waa inuu imaataa hadduu absenteeismkaaga maqnaanshahaaga goosgoosmadaada hadday maqnaato ay badanaato shaqadaas waa lagaa soo celinaa marka absenteeism waxaa laga wadaa maqnaansho ama goosgoos mar imaan okay tusaalahaan hadda gym aragtaa inaad qaadid gymka markaa rabtid inaad muxuu u baahan yahay 5 beri inaad aadid gymka jirkaaga bil kadib waxaa laga yaabaa isku bedel inuu ku dhaco laakiin haddaa maalin aad tegaysid maalin aad ka caajisidid marka absenteeismkaaga badan maqnaanshahaaga goosgooskaaga absenteeism maqnaansho ama goosgoos acacia qurac geedka quraac maaya wax la cunayo maaha qurac geedka ku yaala xaaba cabdi lafoole ceelasha okay geedahaas ama duurka geedaha ku yaala waxaa loo yaqaanaa acacia geedkaas qurac waaye okay hadda google geli daartid acacia waa quraca Soomaalida waxaa waaye
wuxuu ku leeyahay taariikh badan. Acacia qurac, geedka quraca English ahaan waxaa leedahay acacia. Accessory, accessory dheeraad, fasiraaday u baahan tahay. Maxaa accessory loo yaqaanaa? Tusaale ahaan, tusaale waxaan ku samey telefoon aad soo gadatay, telefoonkaaga sidiisa waayo, kuma jiro telefoonka dhexdhiga waxaa loo yaqaanaa accessory, dheeraad waayo. gaariyaa soo iibsatay, gaariga markaa soo iibsatay miraayadiisi iyo wax kaloo nadiif, laakiin wuxuu u baahan yahay accessory, qalab oo dheeraada lagu qurxiyo, okay? Sida sharootada gadaal la saaro oo kale, waxyaabaha lagu qurxinayo. Marka shay accessory, had tusaalaan ani hadda bini aadamka korkeega oo kale dharka accessory kuwa qaar, hadda shaatigeyga oo kale accessory maaha, laakiin faraanta haddaan soo qaato waa kusii qurxanaanaa. Marka shay dheeraadka ah oo wax lagu daray ayaa accessory loo yaqaanaa. Tusaale hadda gurigan qolkan faaruqiisa waa la dhisay, laakiin wuxuu u baahan yahay qalabkaas kuwa muhiim ah. Tusaale kursi iyo miis iyo waxaas waa muhiim, laakiin haddaan nal xaggaan dhigto qurux badan, maruuxada aan ku degsado, xagga aan soo dhigto jaajar, okay, sameecad, accessory loo yaqaanaa, dheeraad. waa fahantamo? Accessory. waayahay a company, wehlin. company waxay ahayd sideedaba shirkad aa u taqaanay, wehlin way noqonaysaa. a company, wehlin, raacid. tusaalahaan walaalkaaga u socdo airbortka, dibaduu rabaa inuu aado, subaxaas waa inaad companyda marka a company ku samey wehlin. You have to accompany your brother. a company, wehlin ama raacid. waxaa lagaa rabaa ereygan inaad kusoo qortid af soomaaliga saxda ah commentiga. accountant maxaa laga wadaa? accountant waxay laga wadaa af soomaali saxda ah, kusoo qor commentiga. qofkii ugu horeeyana bin ayaan saari doonaa. fadlan waxaan filayaa inaad ka hesheen muuqaalkan oo quruxda badan oo juudi igaga baxay. fadlan haddaad ka heshay muuqaalkan 3 asxaabta la wadaag, haddaan ugu cusub tahay na soo follow garay. inta muuqaalkan kiisa xigo aan ku kulmayno waa Camboolo idin leh waxbarasho horumar leh. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. bye.